Ku soo dhawaada warbixintii maanta ee 360 iyo madaxa Ombaasiif Mudane Ashmu Farax. Taariikhdu waa 3 bisha afaraad ee Abriil 2024. Martii waxa uu ku furay hadalkiisa Connectiga cusub waxa uu shaqaynayay 2 asbuuc, iyadoo laga soo shaqeeyay habsami u socodka iyo bakaroonka. Dhammaantiin waa inaad isku daydan isticmaalkiisa. Waxa uu caawinaya tijaabada kooxda ka shaqaynays. Mar walba oo aanu maqalno in naloo kordhiyey muddada rukumashada si bilaash ah, waxa ay noo tahay faa'iido inoo korodhay. Xasuuso, waa qarash ku socda shirkadda oo ay nagu siisay bilaash si aanu uga faa'iidaysano. Mahad ballaaran waxaanu u diraynaa shirkadda. Cadadka ka soo qaybgalayaasha waxa uu buux dhaafiyey 10,000. Laga soo bilaabo 28kii bisha 3 jeer ayuu khamiis walba yimid si isdaba joog ah madaxa shirkadda Ash oo uu warbixino cusub inoo sheegay. Waxa uuna ka soo bilaabay warbixinaha wixii cusub ee soo kordhay iyo xalalka ilaa 1dii bishii Sebtembar. Waxaa kaloo ka hadkay red iyo jaris. Ash waxa uu ku furay salaan. Waxaa bilowday wakhtigii canshuur celinta, markaa waa in mushaarka la ii kordhiyaa si kaftan ah. Waxa ay noo tahay shir aanu ku qaada dhigno halkan wararka cusub. Connecti iyo waxa inagu soo food leh asbuucyada soo socda waa horumar, waanan ku hanweynahay. Shaqada aanu qabanay, agabyada aanu samaysanay si wanaagsan ayay u soo baxeen. Waxaanan odhan karnaa waxaanu ku guulaysanay inaan samaynay agabyo taariikhi ah. 18 bishan waxaa arki doontaan warbixino qiimo badan, wayna sii kordhi doonaan, way isdaba socdaan. Fikrado wanaagsan, aad baanu ugu kalsoonahay waxa aanu haysano iyo kuwa soo socda. Korna u dhaafay waxaa suuqa yaala. Waxaana cad in aydan ka murmi karin ama eedyan karin. Waxaanu soo kordhin doona qaybta lacag bixinta oo qiimaheedu gaarayo $5,000. Waanu la qabsanay isticmaalka fogaal araga oo hoos uma dhigi karno. Waa balatfoom qiimo badan, mar walbana kuwa rukuntay ayaanu ka fikirnaa. Qaar idinka mid ahi 6 bilood ayay haysteen isticmaalka Connecti. Shirkadaha kale ma ogola inay siiyaan fursadahan oo kale, laakiin anagu ballantii aanu qaadnay kama noqonayno. Mar walbana waxa ay noogu fadhidaa qarash aad u faro badan. Hadiyad ayay idiin tahay, ka faa'iidaysta oo ku raaxaysta. Waxa aanu la soconaa oon tirakoobnaa inta shir ee lagu qabtay, IP adreesyada, magacyada ka qaybgalay iyo emailkooda. Wax badan ayaanu ka qabanaa oo aydan ogeyn, weligeedna ma ahaan doonto bilaash. Waxaanu idiin diyaarinay rukumasho jaban. Ilaa iyo hadda waxaa lagu qabtay 2,000 oo shir maalintii. Waxaana hubaal ah in Connecti uu yahay dhaxalgal taariikhdu qori doonto, fursad qaaliya soo kordhin doona. Akhbaar cusub baan idinkaga hayna marka aanu soo afjarno. Mar dhow waxaanu idiin soo gudbin doona akhbaar cusub oo ah tallaabadii aanu ku raaxaysan lahayn. Aad baan u faraxsanahay akhbaarta aan idiin soo wado, taasoo halku dhageedu ahaa dhimo ama ka miro dhali. Runtii waxa aad ka mid tihiin mustaqbal hubaal ah, mustaqbal la hubo leh, mana ahayn mid fudud. Waxa ay inoo ahayd dagaal inaan galnay oo kale. Maskaxdeenu waxa ay ku fadhiday miro ka dhalin. Connecti waa mid aad u qiimo badan, mar walbana aad u sii kordhinayno. Bishan waqti idiin qaban maayo, laakiin waxaan maqi doontaan akhbaar idin farxad gelisa. Waynu soo afjari shaqdeena oo dhan inta qabyada ah. Ilaa hadda waxaanu soo dhammaystirnay hadalka isfasiraya, anagoo ku tijaabinay Hindi. Luuqadaha oo dhana waa la dhammaystiraya, waanan ku faraxsanahay natiijada. 8 bishan waxaa ku soo xiga kamarada oo aad dooran karto habab kala duwan iyo bagaroonka si aad live u geli karto. Haddadan xitaa haddii aad u fiirsato marka sheer garaynayso muraayada, habab badan yaanu ku soo kordhinay, adigoo gaabin kara, qarin kara baneelka. Xitaa duubista waxaanu ku soo kordhinay fursado casri ah. Xitaa dashboardka waxaanu ku soo kordhinay inaad markiiba u diri karto linkiga shirka cidii aad doonto. Konferensi waxaa